السلام عليكم soo dhawaada maanta waxaan sameynaa toorto oo laga sameeyay strawberry marka inta hada miiska yaala loo baahan yahay daawasho wacan marka waxaad u baahan tahay 4 xabo ukun 160 mililitr oo saliid ah waxay u dhigantaa bakeeri marka 4 qaad laga reebay nus bakeeri caano 160 gram oo sonkor hal bakeeri oo bur shukulaato tanad baking powder, vanilla sugar, almonds or sidaan loo jarjaray waxa way looska almond la dhaho heavy cream, strawberry, mint iyo spo hadda waxaan isku qaseynaa ukunta sugarka iyo vanilla sugarka saddexdaas waxaan isku qaseynaa 5 daqiiqo kadib saliid ayaan ku rideynaa intaas waxaan isku qaseynaa 1 daqiiqo kadib inta kale ayaan isku rideynaa وأركزين لكن وحن كورة ukunta sonkorta iyo saliidda markaad si fiican isku qasto ayaad inta kale ku ridaysaa intaad u baahan tahay iyo waxaad u baahan tahay hoos ayaan kusoo qorayaa halkan waxaad ka arki kartaa cake mixka inuu jilicsan yahay macnaheedu waxa waaye hadduu markuu foonada kasoo baxaayo wuxuu noqon doonaa cake aad u macaan oo jilicsan cake had foonada ayaa gelinayaa foonada wuxuu ku jiraa 30 ilaa 35 daqiiqo 180 degrees hadda waxaan sameynaa creamka oo cake lagu sameyn lahaa ana waxaan isticmaalay 200 gram waxay u dhigantaa hal bakeeri sokorta waxay ku xiran tahay dookhaaga ana waxaan isticmaalay 3 bakeeri creamka markaad shiiday faranjeerkaad ku sii ridaysaa sida uu adkaado kadibna waxaad sii jarjaraysaa strawberry-ga halkan sidaad u aragtid sideed strawberry ayaan gooni usii dhigtay waxaan doortay kuwa ugu qurux badan sidaan hadduu sharax aan u isticmaalo inta kalena waxaan u isticmaalayaa fillinka dhexda anoo duubayay cameraga iga damay laakiin nasiib wanaag mar fiican ayaan ogaaday
halkan cake ayaan kala bar u jaray. Cake markaad kala jartid creamka aan soo shiidnaa marinaysaa, kadibna waxaad kor saaraysaa strawberry-ga oo aan jarjarnay. Strawberry-ga markaad saartay ayaad cake halfka kale tartiib u saaraysaa. wax walba markaad iskor saartay ayaad creamka soo haray cake oo dhan marinaysaa. markaad si fiican u marisay ayaad lowska cake dhinacayaasheeda ka saaraysaa. waa mahadsantihiin, waa inoo fiidiyowga dambe insha Allah.